ruuxaas ku jiro waa ra'yi fiican ama fikir fiican ayuu leeyahay, maadaama uu ka leeyahay xaalada fiican nolosha, uu ka leeyahay macnaha aqoon fiican uu leeyahay xagga nolosha. marka qofkaas marka wuxuu noqonayaa, waxaa lagu sifayn karaa qof inuu yahay qof oo markiisa oo isku kalsoon markuu hadlayo, markuu soconayo, aanan cabsaneyn, aanan waleyn. markiisa ayuu noqonayaa qof sidaas ku sifaysan ayuu noqonayaa, dhibaatooyin qof xalin kara ayuu noqonayaa. marka barashada ama cilmiga xaaladaha nolosha badan, barashada marka maxay faa'iido leedahay? faa'iidooyinka ay leeyihiin barashada xaaladaha nolosha waxaa ka mid ah yeelanayaa dabeecad wanaagsan, akhlaaq wanaagsan, mid la fahmi kara ayuu noqonayaa, mid markiisa oo akhlaaqdiisa iyo dabeecadiisa iyo xeelado fara badanba leh ayuu noqonayaa. wuxuu kaleeto u dhaqmayaa qof oo markiisa hogaamiye, qof oo markiisa bismillah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah, wabacd. maanta waxaan ka hadli rabaa qodobka la yiraahdo life skills ama xeeladaha nolosha. life skills maxaa la yiraahdaa? xeeladaha nolosha waxaa laga wadaa waa xeelad ama markiisa aqoon ama markiisa cilmi aada u leedahay nolosha. markiisa qof oo markiisa oo waxaad tahay cilmi qaba nolosha. haddii aada baratid xaaladahaasi maxay markiisa ku sifaysan tahay? waxay ku sifaysan tahay waxaad noqonaysaa qof dabeecad wanaagsan ayaa noqonaysaa, qof markiisa oo xaaladaha markiisa kusoo wajahan oo markiisa xalin kara problemka iyo dhibaatooyinka oo markaas qof kusoo wajahayo xalin kara. qof oo markiisa waxaa tahay oo fikirkiisa uu muhiimsan yahay, oo markiisa dadka qof karti leh ayuu noqonayaa ruux, maadaama uu yahay mid oo markiisa oo yaqaano xaaladaha nolosha. wuxuu leeyahay karti iyo firfircooni fara badan ayuu leeyahay, maadaama uu ka yaqaano nolosha waxa uu ka yaqaano. ruux wuxuu noqonayaa mid markiisa oo maskaxdiisa ay caafimaad qabto, mid markiisa maskax fiyow ah ayuu noqonayaa. dhibaatooyinka ayuu xalin karaa iyo markiisa waxyaabaha markaas oo soo cusboonaansado ayuu xalinayaa. mid oo wuxuu yahay oo communicate effectively, si oo markiisa wuxuu hadlayaa oo wax ku hool ah. qof oo markiisa hadalkiisaba oo wax ku ol ay yihiin ayuu yahay, maadaama uu kasoo bartay nolosha wax uu kasoo bartay. ruuxa markiisa wuxuu noqonayaa isku kalsoon oo confidence ka muuqato ayuu noqonayaa. marka barashada cilmiga ama xeelad u lahaanshaha nolosha ama nolosha wax aad ka baranaysid, faa'iidooyinkaas kooban ayay leeyihiin. faa'iidooyin kaleeta ay leeyihiin waxaa ka mid ah wuxuu noqonayaa mid go-aan ka gaaro suu u bedeli lahay dabeecadiisa ayuu wax ka bedelayaa, oo dhaqankiisa, dabeecadiisa ayuu markiisa isbedel ku sameynayaa. midow wuxuu noqonayaa oo discipline iyo akhlaaq ka buuxda, qof oo akhlaaq miran ayuu noqonayaa. haddii la yidhaahdo dad xun la socosho ama ciyaal xun la socodana markiisa wuu ka harayaa. haddii la yidhaahdo daraagisyaasha, haddii la yidhaahdo gaangistarayaasha, haddii la yidhaahdo tuugada, ciyaal weerada, kulligoodaba wuxuu ka aanayaa mid iska ilaaliyo ayuu noqonayaa. macnaha mid oo geskiisa oo hal abuur u noqonaya, geskiisa ayuu u soconaya. macnaha wuxuu kaleeto noqonayaa mid oo markiisa saaxiibo wanaagsan
doorta, saaxiib xunxun iska ilaaliyo, saaxiibo fiican doorta markaysaa oo maskax furan oo saaxiibadiisa kuwa xunxun iyo kuwa fiicanba kala doorta. Kuwii xunxunna gees ula maha, kuwii xunxun iska ilaaliye, kuwii fiicanna uu gees ula baxo ula socdo. Wuxuu kaloo noqonayaa mid oo markaysaa waqtigiisa si degan si munaasabsan uu ugu faa'iideysto. Si fiican ayuu waqtigiisa ugu faa'iideysanayaa, waqtigiisuu kala qaybinayaa. Haddii la yiraahdo waqtigii uu raaxada ugu talagalay, waqtigii jiifka ugu talagalay, iyo waqtigii markaysaa uu socodka ugu talagalay, iyo waqtigii wada sheekaysiga ugu talagalay, waqtigii salaada ugu talagalay, waqtigiisi ayuu kala qaybinayaa. Wuxuu kaleeto dadka ku caawinayaa waxyaabaha markaysaa khatarta ah inuu ka ilaaliyo. Xaalado khatar ah hadday kusoo wajahnaan karta qofku wuxuu ahaanayaa mid caawiyo oo uu ka badbaadiyo. Siduu uga badbaadin lahay xeelado farsamo adeegsada. Midda wuxuu noqonayaa oo tusaalooyin fiican oo markaysaa ku sifooba. Tusaalooyin fiican qofku ku sifooba ayuu ahaanayaa. Dadkana si fiican ayuu ula falagalayaa oo markaysaa wuxuu ula macaamilayaa dadka macaamiil fiican oo uu iska ilaalinayaa waxyaabaha markaysaa dadka dhibaya ayuu ka ilaalinayaa. Waxyaabaha fiicanna dadka uu markaysaa kula dhaqmaya. Isku soo duubo xaaladaha nolosha waxyaabo fara badan ayay ka hadashay. Waxaa habboon qofka siduu markaysaa ugu dhaqmi lahay oo markaysaa ugu dhaqmi lahay oo tii fiican uu ku dhaqmi lahay markaas. Xusnul khuluq, dabeecad wanaagsan ayaa markaysaa mid fiican ahay. Topic labaad markaasi aan u gudbeyno waxaa weeye self awareness, wacyigelinta nafsadaada. Nafsadaada ayaa wacyigelinaysaa oo waxaa u sheegaysaa inay nafsadaada ay tahay mid fiican oonan ahayn mid xun, inaysan ahayn. Nafsadaada way fiican tahay ayaa leedahay oo ma xumo ayaad ugu sheekeynaysaa. Nafsadaada waxaad ku wacyigelinaysaa waxaad leedahay karti ayaad leedahay, waxaad leedahay awood ayaa leedahay, waxaad leedahay fiicnaansha ayaa leedahay. daciiftinimo iyo awooddaada ayaad kala saaraysaa oo meeshaad ka daciifsan tahayna waad ogaan, meeshaad markaysaa awood ku leedahayna waad ogaanaysaa. oo waad is ogeysiinaysaa oo nafsadaada ayaad hoos ugu sheegaysaa oo waxaa leedahay ani meeshaas iyo meeshaas awood ayaan ku leeyahay, meeshaas iyo meeshaasna awood kuma lihiyo waan ku daciifsanahay. sidaad macaamiisha aad markaysaa dadka ula macaamili lahayd. nafsadaada waxaad wacyigelinaysaa, aad ogeysiinaysaa su-aalo dhowr ah. waxaad leedahay yaan ahay aniga, yaan ahay bin aadan baan ahay. yaay abuuray, ilaahay baa i abuuray. dadkaana sidoo kaleeta yaa abuuray, ilaahay baa abuuray. adduunka maxaa la ii keenay inaan ma arkaysaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ana caabudo, inaan ma arkaysaa aan sameeyo acmaal wanaagsan, inaan sameeyo. sidan nafsadeyda waxaad kaloo weydiinaysaa sida nafsadeyda oo ula xiriiraa oo ula xaajoodaa. nafsadda waxay ku amraysaa waxyaabo xunxun ayay ku amraysaa. marka waa inaad nafsadaada aad dejisaa oo aad u sheegtid waxyaabo fiican, aad u sheegtid inaad tahay qof fiican, aad tahay inaad markaysaa qof xun aadan ahayn. waxyaabaha positive-ka ah oo togayaasha ah aad nafsadaada ood u sheegaysaa. intaan ka imaaday aniga waad isweydiinaysaa, intayna joogaa hadda aniga waad isweydiinaysaa.
intaan u socdaa hadda aniga waad isweydiinaysaa. meeshaas aa u socdo sidaan ku gaari karaa waad isweydiinaysaa oo nafsadaada waxay gelinaysaa. intaan ka imaado kolka hore meeshaan ka imaado waa xagee, maxaan ma arkaysaa aan samayn jiray, maxaan ma arkaysaa aan hadda aan joogaa. marka meesha hadda aan joogo meel sidee ah waay, haddana intaan u socdaa, meesha aan u socdo waa xagee, waa ka fikiraysaa oo nafsadaada ugu sheekeynaysaa. meeshaasaa u soconayana sideen ku gaari karaa. intaan ka imaadi oo kolka horeeta waxyaabaha aa markaasi aad soo qabanaysi maxay ahaayeen, ama wax faa'iido lahaa mise waa wax xun waay. meesha hadda aad joogtidna waa meeshee, oo meesha hadda aad ku sugan tahay meel sidee ah waay. haddii meel fiican ay tahay waa sida la rabay waa alxamdulilah. haddii meel xun ay tahayna waa inaad fikirkaaga iyo isbedelkaaga aad la imaadaa oo meel kaleeta aad u jihaysataa oo gool kaleeta aad samaysataa. hadduu yoolkaasi iyo goolkaasi uu noqonayo yool oo ma arkaysaa waxbarasho ah waa sida la rabay. hadduu yoolkaasi uu noqonayo yool ama ganacsi ah ama fikir ganacsi ah waa sida la rabo. yoolkaasi markaasi ama fikirkaasi see ku gaari karaa, waa inaad samaysatid istaraatiiji iyo xeeladayaal aa u samaysatid. sideen ku gaari karaa haddii la dhahayo waxbarasha, waxaan kasoo baxay secondary aan kasoo baxay, waxaan soo maray waxaan kasoo baxay primary aan kasoo baxay, secondary aan soo maray, jaamacadaan soo maray. waa xeeladahaasi iyo steepkaasi ayaa mid ma arkaysaa usoo maraysaa. marka ilaa waxaan rabaa ilaa degree aan gaaro ama heer sare aan ka gaaro, sidaan ku gaaraya markaas waa inaad samaysataa xeelado, waa inaad u dejisataa. noloshaba waxay leedahay waxyaabo ma arkaysaa la dejisto iyo qorshooyin ayaa lagu socdaa ee layskama socdo macnaha. haddii aad tahay mid ganacsi markaas suubsanayo, ganacsigaaga heerkiisa uu marayo waa xagee, siduu ma arkaysaa yahay ganacsigaaga, ma ganacsi oo hadda ma arkaysaa uu wax ka dhiman yahay miyaa. marka waxaad go-aansatay ama yoolkaaga uu yahay meel inaa ma arkaysaa ganacsigayga uu ma arkaysaa gaaro. marka yoolkaasi aad dejistay iyo ma arkaysaa meeshaasi aad rabtid inaad gaarto, waa inaad istaraatiiji ama xeelad aad la imaadaa macnaha. istaraatiijigaasi aad yeelanaysidna waa inaad ma arkaysaa aad ku dhaqantid si yoolkaasi ama arkaysaa fikirkaasi aad u gaari lahayd. waxaad naftaada ku wacyigelinaysaa, aniga waxaan ahay mid dabeecad wanaagsan, mid caqli badan ayaan ahay, mid oo ma arkaysaa oo fiican ayaan ahay, mid hal abuur samayn kara ayaan ahay. waxaa samaysanaysaa marka yool ayaa samaysanaysaa iyo ma arkaysaa himilo iyo ma arkaysaa jecel. wax ayaad jeclaanaysaa, waxyaas aad jeclaasidna waa inaad qabsataa oo ma arkaysaa aad samaysaa. marka wacyigelin la-aantu nafsadaada wax ma qabsan kartid. oo macnaha haddii la dhahayo qofkii aad markaasi aad noqon lahayd, for example mustaqbalka dhow waxaad rabtaa inaad noqotid qof oo ma arkaysaa hebel, qof ma arkaysaa oo magac leh, qof ma arkaysaa oo wax bartay, qof ma arkaysaa oo businessman ah. marka waa inaad nafsadaada ood wacyigelisaa macnaha. faa'iidooyinka ay leeyihiin wacyigelinta nafsadaada waxaa ka mid ah, qofku macnaha wuxuu si oo macnaha habboon ama si wanaagsan uu uga falcelin karaya xaaladaha nolosha. markaasi ayuu ma arkaysaa wuxuu ugu falcelinayaa qofka si habboon ayuu ugu falcelinayaa. wuxuu ula dhaqmayaa dadka dhaqan fiican ayuu ula dhaqmayaa. nafsadiisii ayuu ma arkaysaa aqbalayaa
wuuna ka taxadirayaa. wuxuu markaysaa samaysanayaa yoolal iyo goolal muhiim ah ayuu markaasi samaysanayaa. wuxuu noqonayaa qof markaysaa oo nafsadiisa ku kalsoon, oo nafsadiisa jecel, oo ka daryeelaya, oo ka taxadirayo ayuu noqonayaa. intaas ayuu ku joojinayaa. wallahu subxaana wa tacaala.